السلام عليكم كسو دواada mawduuceena maanta casharkii sagaalaad ee Ikhlas Academic and Technology ayaan idin soo gudbin doonaa iyo Camtasia Studio sida loogu editing gareeyo video professional ah adigoo sameynaya video qurux badan oo aad ku soo bandhigaysid sida aad sameynaya film gaaban ee YouTube report oo loo sameynayo warbaahin iyo wixii la mid ah muuqaal sidoo kale xaflad qurux badan ayaad sameyn kartaa adigoo ku sameynaya inaa muuqaalo dul saartid sawir dul saartid background-ka ka bedeshid mid kale u sameysid codka gaabisid dheereysid ama ka saartid ama cod hor la gelisid transition u sameysid sidoo kale u sameysid animation iyo wax badan oo qurxinaya hadaba ku soo dhawaada casharkeena sagaalaad ee maanta waxaan ku soo qaadan doonaa casharkeena sagaalaad ee maanta sida codka loo dheereeyo awal shala waxaan aragnay sida codka looga reebo maanta waxaan arki doonaa sida codka loo dheereeyo video aad sameynaysid sidoo kale inaad u sameysid muuqaalka animation qurux badan oo qoraal soo galaya ama ka baxaya sida qoraalka idin muuqdo kala hadda sida uu muuqanayo qoraal ayaa halkaas soo galay oo color ka sheeyo kadibna qoraalkaasi uu isbedelayaa okay sida ayaan u sameyn doonaa casharkeena maanta marka waan guda galeynaa casharkeena waxaan horay u sameysnaa dan meesha ka saaro casharkeena maanta ayaan guda galeynaa hadaba waxaan soo qaadanaynaa meediyaheena ayaan tagaynaa si aan u soo qaadano barnaamijyadan ku sameyn lahayn haye marka koowaad waxaan soo qaadanay video ayaan soo qaadanay si aan halkaan video u quruxsanano video ayaan soo qaadanay videogani wuxuu noqonayaa mid shaashada ka yar hadaba shaashada si aan u la ekaysiino hore ayaan u soo baranay oo waxaan sameyn karnaa inaan fit kaga dhigno ama midba marjiidno fitdan kaga sidaan ayaan sameyn karnaa in dhankan ka jiidno markaan buuxino asoo dhexda qabano hoos keeno ma gees keeno kadibna wuu ku raacaya halkaan ayaa qaban ka dhasa shaashada ayaa ku kala bixinaysa inkastoo videoga uu qaarkood video uu ka yaraan karo laga yaabo in video waxoogaa ka yaraado uu ka yaraado waxaan ka wadaa in meesha laga arkayay ay aad uga yaraato video shaashadii laga arkayay okay video marka aan fiirino inuu noo habaysan yahay video waa ku dhufanay video waxa weeye magaalo soconaysa okay oo la habeeyay okay gadaal background-ko ciira la weeye cir caadi aan ka samaysan kareynaa marka doonaysan codka dheerisa hadii shay cod leeyahay halka ayaad ku dhufanaysaa halkan waa videogii oo moving waa muuqaalkii halkaana waa audio halkaan sameynaysaa halka ayaad ka dheereynaysaa audio waxaan sameynaa marka xaggan gain u soo dhigtid waa gaabi markaad kor u wadid boqolkiiba intee dheeraanaysaa waa meeshan minimum iyo maximum halkaan ku qoranta marka halka ay codka ka dheereyn kadhaa kana gaabin kadhaa marka ku sameynaysid Camtasia Studio marka codka sameynaysid waa maxay shayga waa kan halka ayuu kugu sameysay amsan sidoo kale dheeree gaabi halkaas ku sameysan kadhaa okay kaasi waa muuqaalkii iyo codkiisii hadaba background-ka inaan bedelnaa rabnaa quruxsanana si aan u bedelno waxaan soo qaadanaynaa cirkiin kana soo qaadanaa sawirka waan rabnaa inaan si cirkii u isticmaalno ka daba marino hoos baan ka dhigaynaa marka okay waxaan sameynaynaa inaan ku kala bixino okay laakiin ma uusan yeelin oo sawirka wuxuu noqday mid aan yeelayn haddana meel dhexe ayuu taagan yahay soo noogu la ekaado noo kala bixi oo shaashada dhan noogu kala bixi okay ka markaas u sameynay waxaan doonaynaa
inaan kan kore wax ka bedelno saa wax uga bedelno waxa noo tagtaa virtual effect kadibna waxa tagtaa remove color oo ah shaqsigan soo jeeda kadibna qabo soo jiid dhex keen muuqaalkaagii marka dhex keenta xagga aad oo remove color ama se calaamadan oo property-ga ah aad halka ku dhufo qalinka hor qaado kadibna halka tag saga si waxa ku soo baxay cirkiyo nadiif aan fiirina magaalada marka si noogu quruxsan tahay kay xaggan u dhig kana xagga u dhig darbiga say ugu dhagaan okay waxaan sameynay magaalo meel cagaar ku soconaysa laakiin in yar ayaa waxa ka booday colorki background-ka sababta keentay inuu ka boodo waxa tahay cagaar ba hadana kan u jira cagaarkan yar dad doonaysa inaad ka dhameysid waxaan sameynaysaa dad doonaysa cagaarka ka dhameysid kan ayaa yareynaysaa okay magaalada ayaa ii doornay Soomaa remove background kan joognay okay yareyntu maaha yareyntii sidaan ahayd maaha laakiin waxaan sameynaynaa markaan colorka ka bedelaynay waxaan sameynay colorkan ka bedelnay kadibna halka aan doonayna inaan wax ka sameyno waa halkan cagaarkan ka reebayna okay marka colorka si fiican aan u dhameystirna media mid kora ku dhufanaysa kadibna waxa noo soo qaadaa sawirkan kale halkan noo soo dhigo hoose kadibna sawirka la baxayo weesaan soo jiid la ekaysi okay wuxuu noqday sawir meel dhex ku kooban buu noqday hadaba si uu carada u kala gaaro kala bixi sawirkan kala bixi aad u weyn sawirka si muuqaalka u kaaf garay okay intaas waxaan ku sameynay muuqaalkii iyo inaan qurxinay way hadaba intaas aan sameynay waxaan noo haray inaan sawirkii qoraalka dul saarno qof masuula ama shay kale tuu noqon karaa qoraal qurux badan ayaad kor saaraysaa style-ka aad ugu saxaysid okay waxaan noo tagtaa annotation oo hore aan u soo barnay kadibna waxaan noo soo qaadaa marka track ka wana ka helaa track 3 track 1 ba kor jira marka calaamada geesta qaba scroll bar-ka ku jiid halkan ayaa noo banaanaatay kadibna waxaan leenahay kan noo soo jiid halkan noo dhig kadibna geestan qabo inta muuqaalka soconayo waa socodsiin ka dhaa ama meel yar qofka mas'uulka hadalkiisa meeshu ka bilaabanayo waad ka dhigi karaa waad yareyn karaa intaba adiga ayaa u xor ah saa u sameeysid marka hadda muuqaalka maadaama wax yar kooban yahay halka noo soo dhig halka double click baad siinaysaa meesha qoraalku ka muuqdo kadibna waxa sameynaysaa qoraalka ayaad qoraysaa waxaan leenahay kusoo dhawaada muuqaal qurxoon kusoo dhawaada muuqaal qurxoon markaan ayri halkan waa kaas aan u kala bixin karaa saas aan u kala bixin karaa kan ka weyneyn karaa okay haddaan halka ka kala bixin halkan ay ka sameyn karaa ka kala bixin karaa tan waa qoraalkii tan waa shaygan hadda aan joogno oo haddaan halkan saa u sameyno wuxuu noqon karaa okay unactive miyaha muuqaalka wuxuu noqonayaa inaad daciif ka dhigtid iyo inaad yareysid sidoo kale halkan colorka ka bedeli karaa waxa ka dhigi karaa colorka aad doonayso any colorkaasan ka dhigay laakiin waxaan rabaa inaan color ka dhigo color daciif oo ciira ah inaan ka dhigo sidoo kale waxaan doonayaa dhexdiisa muuqaalka qoraalka ku jira inaan ka dhigo colorkiisa bedelo waa doorta highlight baan sameeyay kadibna halka horaan ku dhufday waxaan ka dhigay ka soo qaad waxa ku haboon white mise red gaduud oo kale ka soo qaatay gaduud oo kale tan ka dhigtay kadibna waxaan iri gaduud iga dhig xaggan fartan soo aaday
halkaan farta ii waaweyn halkaan ka waaweynin karaa markaan xariiqdan xagga u dhaqaajiyo size-ka wuxuu noqonayaa muuqaal qurxoon shaashada dhan wada gaaraya kusoo dhawaada inta markaan sameynay. Okay, halkaan dhinaca muuqaalkana waxaan sameyn karnaa inaan halkaan ka maamulno asna oo ka dhigno kalarka daciif ka dhigno kala bixino. Okay, halkaan noo qabo marka saan hoos u geyno. Okay, kan gantan kala qabo ka dabarar wax yar oo kooban ka dhig. Okay, marka inta sameynay waxaan sameynaynaa inaan quruxsano oo animation ka soo dhigno inaan ka dhigno asa transition baan rabnaa animation ma rabnee. waxaan leenahay transition waa meesha la iskaga xirayo labada qoraal weeyaan. marka waxaan u baahanahay behavior kanaan u baahanahay kan marka mid kasta waa dul saaranaysa u doorano kan muxuu leeyahay qoraal xag ka soo baxayo noqday. Okay, kan saan noqday kan oo kale aan rabnaa xag ka soo baxaya kaas oo kale aan qabanaynaa waa dhex geysanaynaa oo ku dhex jiideynaa. marka ku dhex siideysano dhinacaan waxa nooga soo baxaysa behaviorkii noocyadiisa kala duwanaa. waxaan niri styleka waxaan ka dhigan karnaa nooca rabtid. waxaan ka dhiganaynaa slide oo kale aan ka dhiganay movement dhaqaaq oo sameynaa. waxaan niri waxaa ka dhigtaa eraser in ka nooga dhig wuxuu leeyahay circle nooga dhig waan leenahay. halkaan waxaa ka dhigtaa right dhinac midig inuu u dhammaanayo oo kale ka dhig aan baraaweyno marka inoo shaqeeyo in kaleeto. Okay, xaggaas ka soo baxay soo jeedid meeshaan waxba kuma qornayn laakiin qoraalkii iyo waxaas ku aadamay kii la yiraahdo qoraalka box ka hooseeya meeshaan waa faarqada waa cil waxba kuma qorna. marka xagga waxa ka soo baxay qoraalkii iyo soo is wata iyo xariiqdii is wata. Okay, marka halkaan ana daciif ka dhigna laakiin adu wax ka dhig ka far muuqata ka dhig ka laga yaabaa halkaan inuu ka soo jeedo qof aad doonaysa inaad video oo codkiisa aad doonaysa inaad tiraahdo qof hebel asagu waa marka uu cad yahay background ka sheeyay guri ama xafiis buu jooga hoostiisa kalar ka duwan baa ku sameynaysa oo ku soo baxay qoraal madow ah ama cadaan sida aad markaas u aragtid inuu muuqan karo. marka sida ayaa u sameynaysa transition-ka waa behavior-ki iyo annotation oo isku xiriira iyo sidoo kale background ka sheeyay oo bedelnay magaaladan. sidaas ayaan u samaysan karnaa qoraalka. sidoo kale shayga uu cad yahay waxaan ila codkan dheereynaynaa muuqaalkan tagaynaa muuqaalka cod la soo ma waa kan codka marka dhinacaas ka helaysaa. halka ayaad markaad samaysid halkaan ka dheereyn ka kana gaabin ka saan ay looran ka soo jeedid ama halka waa qaban karaysaa oo hoos wada u dhigtay waa gaab hada kor u dhigtayna waa dheere. insha soo aragnay labada noocba. Okay, sidaas ayaa qoraalka loo qurxiyaa markaas video doonaysa inaad samaysid qurux badan aad doonaysa inaad samaysid sidaas ayaa ku samaysan kartaa. calaamad kastana waad saari kartaa. Okay, halkaan kale tadaan saaro looga wareegaysa sida aan barnaamijyada soo bandhigay aan u adeegsado. waxaan u sameynayaa loogadii caadi ayaan soo qaadanayaa oo green screen haba ku jiro ama shay kale ku jiro ayaan soo qaadanayaa markaas ayaan bedelayaa. Okay, media node media markaan tagay waxaan raahdaa import waan leeyahay oo control iyo i baa isla qabana control i sa import oo raahdo kadib meesha ii taalo ayaan u raadsanayaa oo barnaamijkan editing leeyahay galay kadib waxaan eri logo raadinayaa ugu qoran tahay logo screen logo tan oo noo soo qaatay screen logo soo qaatay. kadibna waxaan rabaa inaan meesha ugu koreysa dhigto si meesha ugu koreysa inaan dhigto daas dhigteedii kor dhigto waa isla meeshii halkan koraataan dhigtay ka soo qaad. Okay,
marka waxaan leeyahay inta kale iga jar intaan u baahnayn iga jar baan leeyahay intaan u baahnayn saa iskaga jaro waxaan sameynayaa tan ayuu ii dooran waa computerkii s san taabanaya xarafka s ka rpf saabtay maxaa dhacday wala ii kala jaray qaybtaana ku dhuftay waan iska tiray delete baan taabtay qaybtaana soo kacay halkaana imid wuxuu leeyahay uu caro dhan buu qabsaday oo ka sokeeya macnaha si fiican ugu aadin iska day saan ugu kala bixi waxba saameyn ma yeelan doono sida marka sameeyna ujeedada waxa baashada ka isticmaalana kadibna waxa noo tiraahdaa virtual effect kadibna waxa noo soo qaadaa remove background key ku dhex jiid asaga laftiisa dhex dhig shaygii ma dhex dhigto dhinacaan aad waxa tiraahdaa qalinkii noo soo qaad kadibna halka click iskaga sii wow waa qoraalkii wixii awal saaka sameysana noo soo baxay okay amraaweyna marka okay waxaan aragtaa loogadii kor soconaysa oo wareegaysa de computer ku dhagdhagayo caadi u socotaa haduu yahay muuqaal caadi halka waa soo dhigi kara muuqaal caadi u soconaya ama mid iska aan shaqa dhaqaaqayn oo muuqaal caadi oo la daawan kara halkan ku sameyn karnaa okay waxa soo dhan waa mid kala saari karnaa oo shay aan ku keeno waa saari karnaa dad doonaysa inaan sameyso qof gaari jiirayo kaleeto waxa sameynaysa qofkii oo si ku fay marka sameysid ayaad wax xamsana kadib wax soo saaraysa gaarigii background-kooda isku aadinaysa dag wax sameynaysa sidoo kale diyaarad soo kaleeto degaysa soo sameynaysa meel garoon oo sawir soo qaadaysa meeshii ku degaysa ayaad ka dhigaysa marka wax ku noqonaya muuqaalkii soo isku keeno qoraalkiina hoos ba ka sameynaysa sida hadda aragnay oo waxaan sameynaynaa anaysi ma sheegayna qoraalka noocaan sameynaynaa marka soo qaadano kaleeto markaan soo qaadano kaleeto double click siinayna qoraalkan ku dul qoraynaa intaas casharkeena maanta ku soo koobaynaa haduu muuqaalkan ku xiiso gashay fadlan waxa ka heli doontaa waxaad hadaa muuqaalkan ku xiiso gashay fadlan subscribe saar sidoo kale aad u baahato daatada Camtasia Studio casharkeena linkigiisa ayaan soo dhigi doonaa halka ayaa kala digi kadhaa linkiga oo aad Camtasia kala digi kadid laakiin Camtasia casharadeeda hal cashar ayaa nooga dhiman si fiican ula soco sidoo kale waxa noo soo socda barnaamijyada kale sida Adobe Premiere Pro iyo Sony Vegas Pro oo ayuu kamid barnaamijyada wax lagu editan gareeyo iyo wali barnaamijyo kale muhiim waa injineer Cabdinaasir Axmed Jaamac kaga tagay kulan dambe xiiso leh iyo waliba casharada Ikhlas Academic and Technology